waxaan rabaa inaan ka hadlo Premier League oo Sunderland kaalinta labaad ay soo fadhiisatay taasoo guul weyn ka gaartay Chelsea. Chelsea waxaan la soconnaa in ay 5-1 uga soo adkaatay kooxdii Ajax, laakiin ay filaysay Sunderland oo runtii ah koox Premier League sanadkan ku soo biirtay play-off waxa la dhahayana ku soo baxday inay ka adkaa karto. laakiin kooxdan Sunderland waxaan la soconnaa tababarooda inuu yahay tababare Faransiisa, difaacan aad inay u adkaystaan ay gadaal ay 5 ku dheelaan dhexdan 4 ay dhigaan kadibna hal ciyaartoy kaliya ay horay u diraan. inta badanna gurigooda ay guul ay ka gaaraan. ciyaaryahankii hore ee Arsenal Shakana oo u ciyaaro oo u yahay hogaamiye, runtiina waxaan qabaa tababaraha inuusan ahayn tababare aan la aqoon, laakiin hadda magaciisa soo dhisay. Chelsea gool ayay la hormartay oo Garnacho oo u dhaliyay kubad fiican oo la siiyey gees inta uu qaatay goolhayaha labadiisa lugood darbo ka dhex bixi, taasoo Chelsea marka dambeyso ay aad iyo aad isu filaysay inay goolal sii dhalin doonto hore u socon doonto. hase yeeshee waxa loo yaqaano kubadaha gacan ku tuurka oo foorada lagu soo tuuray in laga dhaliyey, taasna ay noqotay hubka lagu shaqaysta hadda hal iyo hal laga dhigay markii laysku soo noqday in muddo ana kadib ciyaartii ay socotay in meeshaas kubad la soo gamay in laga dhaliyey. Chelsea xariiqan 18 la keenay, nambarka 9 dib uu soo celiyey Talbina oo kubad fiican oo ka dhaliyo meeshaas ay guul ay ku gaartay kooxdii Sunderland, guul aan la filayn. Stamford Bridge ay ku garaacday kooxdii Chelsea-na wax ay soo reebatay ma jiro. ciyaaryahanadooda ugu fiicnay dhammaantood waa dheelaayeen, qaybta dambe xataa Esteban iyo ciyaartooy kale ayay keeneen. hase yeeshee waxaa loo diiday inay xariiqinta 18 si sahal ay ku galaan ama fursado ay sameeyaan, taasoo Sunderland difaacooda oo aad iyo aad u adag yahay oo saan hore u sheegaba 5 ciyaartooy oo gadaal joogtay 4 ku xigto inay tahay si loo dhex marana inay aad iyo aad ay u adag tahay. Sunderlandna waxaa ka go'an sanadkan inay Premier League ay joogto, marka Sunderland waxaan isleeyahay sanadkan inay joogi doonto ayay u badnaa doontaa. kaalinta labaad ayay soo fadhiisatay oo City waxay u dhacday kaalin saddexaad, Liverpool kaalinta 5aad ayay u dhacday. marka Sunderland guusha ay ka gaartay Chelsea waxaan qabaa tababaraha Enzo Maresco in la filayay inuu kooxda hore u sii wadi doono, laakiin haddii Sunderland intay gurigaada kuugu timaada ay ka adkaanayso ma u malaynayo inuu macalinkaas macalin aad iyo aad u fiican inuu sii noqon doono. waxaan la soconaa Liverpool inay gurigiisa ugu timid oo awood u sheegto oo ka adkaaday, haddana Sunderland ayaa ka adkaatay. taasna waxay u tahay dhibaato kooxda Chelsea iyo tababarahooda Enzo Maresco, taasoo taageerayaashii Chelsea ay aad iyo aad uga xumaadeen arrintaas. waxaana leeyahay hambalya ayaa waxaan u diraynaa kooxda Sunderland oo aad iyo aad isu abaabushay, aad isu difaacday, weer celinna ku shaqaysatay oo goolkii labaad kubad weerar lagu hayo oo la soo gooyo kubad dheer xariiqan 18 ay ku rideen, nambarka 9aad kubad oo celiyey kadibna uu ku raadinaya ciyaartooy gurmada waxaana u yimid Talbo, ciyaaryahankaasoo kubadda markii loo soo dhigay cag si fiican uga dhaliyey Sanchez. waana kaalinta labaad ayay soo fadhiisteen, waxayna ka mid tahay mucjisooyinka Premier League iyo isbeddelka Premier League ka socdo. Manchester Unitedna waxay ku socotaa markii saddexaad inay badiso. Sunderland ay ka badisay, Liverpool ay ka soo adkaatay, Brighton ayay gool ku leedahay, inkastoo inta badan kubadaha Brighton ay haysato kubad haysashada ay Brighton ay ku fiican tahay. wax walba ayaana dhici karo, laakiin ilaa hadda waxaa u malaysaa in Manchester United ay guul ay ku socoto. haddii aan u leexdo ciyaartii dhex martay kooxdii Newcastle iyo Fulham, ciyaar waxay aad runtii aad iyo aad u fiican, aad iyo aadna u furan, taasoo qaybtii hore u suurta gashay kooxdii Newcastle inay gool ay hesho ay meeshaasna 1-0 ay ku hormarto. oo waxaan qabaa in gool aad iyo aad u fiican inay dhaliyaan, kaasoo qaladka uu iska lahay ciyaaryahanka difaaca uga dheelay Fulham Bazi, kaasoo kubad ay ahayd inuu dhaqso iska dhiibo ama iska bixiyo inuu celceliyo, kadib markuu dhiibi rabana Jacob Marvi inuu kubaddii ka xoogay lana galay, runtiina dhinaca uu ka yimaan dhinaca kale ayuu kubad hoose oo ka dhaliyay, taasna suurtagal uma ahayn goolhayaha Leno ee Fulham inuu qabto. goolkii labaad oo laga dhaliyana qaladka waxaa lahay isla Bazi ayaa lahay, kubadda uu soo gooyey ayuu la cararay ciyaaryahan geeska ka dheelo oo markaas laftigiisa bedden lagu keenay Kevin ayay ahayd kubadda inuu siiyo, hase yeeshee uu ka daahiyey dhexda ayaa laga gooyey, weer celin ayaana lagu celiyey oo kubaddii waxaa la siiyey ciyaaryahanka William Osula, kaasoo kubadda xariiqan 18 korkeed u qaatay kubad fiican oo shuudana ku gamay.
goolahayahana waxay aad Leno kubadda inuu qabto hadduu bixinayana gees inuu u bixiyo hase yeeshee hortiisa ayuu dhigtay waxaana si fudud uga dhaliyey ciyaaryahanka Bruno Guimaraes waxaana la soconaa Guimaraes qaybtii hore inuu helay kubad madaxa oo furan hase yeeshee uu dhali waayo laakiin cayaar fiican ayuu soo bandhigay oo waa ciyaaryahanada loo yaqaano box to boxka gala waayo Guimaraes oo waxaan la soconaa in goolkaas uu dhaliyey inay ku timid dadaal weyn iyo socodkiisa iyo awoodda uu leeyahay inuu ku soo galay kubad goolahayaha garaaca inuu xarqan 18 u yimaado oo ka dhaliyo number 9aad ma ahayn dhexduu ka dheelaayay number 8 oo kale ayuu dheelaa inkastoo markii dambe ciyaaryahankii Talyaaniga la fadhiisay Tonelli la keenay Newcastle-na markii barbardhac laga dhigo ciyaaryahankii Fulham oo ciyaarayay oo gool madaxa uu ka dhaliyay Sasa Lukic ayaa gool fiican oo madaxa ka dhaliyay laakiin madaxa ayuu ka dhaawacmay taasna waxay keentay Sasa Lukic in la bixiyo markaasna dhexdoodii xoog badan way yeelawaysa oo waxaan la soconnaa in Beck kaligiis uu joogay kadibna in Smith Rowe laf aantiisa la bedelay ciyaaryahankii kale Adam Traore oo cabsi ku hayay oo geeska dheelay aad u xoogana aadna u orod badnaa laf aantiisa in la bedelay waxaana qabaa Marco Silva inuu qaladaad ku lahay bedelada qaar uu sameeyey waxay ahayd ciyaaryahanka nambarka 2 ka dheelayay Tete oo qaybta hore Gordon yellow ku qaatay inuu bedelay ahayd oo Castania oo mar dambe uu keenay inuu mar hore uu keenay ahayd sababtoo ciyaaryahankaas Gordon markii dambe waxaa yimid Harvey Barnes yimid dhinacaas aad uga soo galayay dhinacan kale Alanga la keenay Alanga aad iyo aad u fiicnay inkastoo kubadaha ku riday haddana muusan fiirinayn laakiin saasay tahay cabsi ayuu ku hayay kooxda Fulham marka Fulham laba gool darro isku xigta ayaa ku dhacday Newcastle-na way guuleysatay oo kor ayay u soo kacday laakiin waxaan is leeyahay Fulham guul darradan ku dhacday inay barbardhac la tegi kartay cayaar ahaan markaa fiiriso oo aad iyo aad inaan looga awood badnayn si kastaba ahaatee waxaa kaloo biri dhici doono kooxdii Arsenal ayaa waxay la dheeli doontaa Crystal Palace ee London isla yihiin waxaana qabaa haddii aysan iska xakameyn Mateta inay meeshaas ay guul darro la tegi doonaan Matetana waa ciyaaryahanka keliya halista ku ah kooxaha intooda badan waa ciyaaryahan dheer oo xoog leh suurtagalna u tahay inuu goolal uu dhaliyo difaaca Arsenal waa la soconaa difaac ugu fiican Premier League oo ilaa hadda 3 gool in laga dhaliyay keliya waana difaaca ugu adag ilaa hadda Premier League marka waxaan filan karaa inay meeshaas ciyaar ay kala tegi karaan City-na waxay la ciyaari doontaa Aston Villa gurigooda ugu tegi doontaa oo City tijaabo ayay u tahay biri haddii horyaalka tartamaysay haddayna tartamayn biri ayaa la ogaan doonaa oo haddii ay ka adkaadaan Villa waxaan qabaa in meeshaas City ay markaas dib u soo noqonayso inkastoo ciyaaro kulul ay ku soo socdaan oo Bournemouth kadib ay la dheeli doonaan ay kadib Liverpool la dheeli doonaan saddexdaas ciyaar hadday badiyaan City kaalinta labaad ayay imaan doontaa ama kaalinta koowaad sida aan isleeyahay waana ciyaarta lagu ogaan doono City awooddeeda iyo xooggeeda sida uu yahay iyo inay horyaalka u dagaalamaysa inays u dagaalameen saddexdan ciyaar ayaan ku ogaan doonaa oo biri labada duurnimo ee Villa Park ay ku ciyaari doonto kadibna Bournemouth ay la ciyaari doonto kadibna gurigeeda ugu imaan doonto Liverpool iyo Bournemouth labadaba gurigooda ayay ugu imaan doonaan iyo Dortmund oo labadooda lafaantooda Champions League ay la ciyaari doonaan ciyaarahaas hadday guuleystaan City waxaan qabaa Pep Guardiola kooxda uu soo dhisay inay isqabsatay laakiin haddii biri laga adkaado ma u maleynayo inay horyaal u dagaalamayaan oo Champions League ayay u dagaalami doonaan sida ay geli doonaan marka birito ilaahay hadduu ka raali noqdo waxaa noo ballama City iyo Arsenal oo labada galabnimo ciyaari doono maxay keeni doonaan birito ayaa xaaladooda ka hadli doonaa bal waxa ay keenaan